subax wanaagsan dhegeystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington aan ku horeyno ku dhawaad 20 qof ayaa ku dhintay dagaalo qaraar oo shalay ka dhacay gobolka Bay kuwaas oo dhex maray maleeshiyada Al-Shabaab iyo kuwo kale oo daacad u ah Mukhtaar Ruubo Abu Mansuur oo horey uga tirsanaa ururkaasi kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed Maxamed Xasan Fiqi ayaa dagaalkan uga waramay Haruun Macruuf dowladda Koonfur Galbeed waxay iyo dowladda federaalka waxay la wadnay warar sidaas darteed nimanka Al-Shabaabna waxay dawaanahan isu diyaarinayeen inay arrintaasi burburiyaan marka subaxdii Arbacada ahayd habeenkii sagaalkii saddexdii habeenimo iyo weerar kusoo qaadeen muxuu ahaa meeshii uu ku jiray ayagoo ka soo galay afar jaho oo kala ah dhinaca Gedo qola ka timid dhinaca muxuu ahaa boqol waqooyi ka yimid dhinacan oo Hirshabeelle xaggeeda iyo Beledweyne aageedana ciidamo ayaa ka soo galay dhinacan beedada xaggeedana ciidamo ayaa ka aaday marka ilaa islaam ay weerar u qaadeen meel buura ah tagay ciidamadiisa ay deganaayeen say wax u dhaceen yaa guuleystay dagaalka oo ay labada dhinac isugu yimaadeen markii ugu horeysay dagaalka markaana lagu soo wargeliyey waxay ahayd kadib bay ahayd si fiican bay isu difaaceen ciidamadii Abu Mansuur difaacaasi ugu horeysay difaac bay galeen laakiin markii dambe waxaad moodeysay in xoogaa ciidamada macnaha muxuu ahaa Abu Mansuur lagu soo tira batay markii arrintaas ay dhacday ay xeelado sameeyeen waxay inay xoogaa wax dib u guraan ka dhigaan kadib way ku soo rogaan celiyeen taasi waxay keentay marka in Abu Mansuur uu iska difaaco ciidamadaasi runtii khasaaro badan baa meesha ka dhacay khasaaraha runtii hadda lama sheegi karo sababtoo ah saacadda saa kula hadlayaba dagaalkaas ilaa hadda muusan istaagin isagana wuxuu ku guuleystay inuu maaragtay isdifaaco annaguna waxaan ku guuleysanay Koonfur Galbeed ahaan aan go'aansanay inaan ka qayb qaadano arrintaasi annaga ma aha inaan difaacayna Abu Mansuur oo keliya balse goobta lagu dagaalamayo iyo aada lagu dagaalamayo waxaa jooga shacabkii aan mas-uulka ka ahayn taas ayaa keenaysa marka inaan isu diyaarinay Koonfur Galbeed ahaan inaan macnaha ka hortagno nimanka shabaabka iyo nabadiidka waa gartay marka tirada dhimashada oo labada dhinaca imisaad ku hesheen xog ahaan oo maxaan ku yidhaha idinka intiida soo gaadhay wallahi runtii arrimahaasi kulli waxaa ka hadli doona wasiirka amniga iyo muxuu ahaa saraakiisha ciidamada federaalka ayaa warbixin ka bixin doono taas waxaan ku xaqiijinayaa inaan gurmadkaasi ka qayb qaadanay ka ciidanka Koonfur Galbeed ahaan iyo ciidanka dowladda in shacabka dhulkaas ku nool sidaan u badbaadin lahayn Al-Shabaabna aysan ugu guuleysanin cid kasta xagga nabadda u soo dhawaata inay ka hortagaan oo ay qabsadaan hadday suuragal noqoto waxaa soconaysa micnaha inaysan marna suuragal noqon qof kasta oo weyn oo amiir ah ama dalka micnaha la badigoobaya ka mid ah oo isku daya inuu xagga nabadda usoo jeesta inuu kusoo dhiiso waayo ka dhacayso marka annagoo dhinacyo badan fiirinayno ayaan gurmadka noocaasa sameynay annaga ciidamadeedana maanta aagaasi Al-Shabaab dagaal ay kula jiraan wixii waroo ka soo baxo dhimashadu way badan tahay gawaari ilaa iyo 5 gawaari in laga gubay ayaan ku xaqiijin karaa nimanka shabaab gaarina macnaha in dhinaca Abu Mansuur laga gubayna waan xaqiijinaynaa laakiin qataaru intaa waa kasii badnaan karaa oo arrin dhammaatay ma aha arrintaaga waa ilaa hadda marka dabcan si nidaamsan baad isaga warhayseen dhinaciin iyo dhinaca Mansuur xiriir baad samayseen intuu dagaalku socday maya inta uusan dagaalku bilaabin ka hor waxaa jiray inaan macnaha soo dhaweynay annaga maaragtay in wada hadalka macnaha uu sii socdo inaan macnaha Koonfur Galbeed ahaan maadaama uu kasoo jeedo deegaankiina uu joogo annaga mas-uuliyad ayaa naga saaranka dowlad ahaan inaan wada hadalka naga furno kabacdina dowladda federaalka arrinteeda usii gudubto marka xog hosta ayaa socotay iyo hoose ay socotay arrintan dhacday markaan hadda u gurmadayno Abu Mansuur oo keliya inaan difaacno iyo ciidamadiisa annagu umaanan ma qorshaha keliya balse deegaanka lagu dagaalamayo shacab ayaa ku nool
shacabkaa ku nool inaan difaacnana waajib ayaa naga saarnaa markaas si qorshaysan ayaan ugu talagalno dareen ah inaan uga qayb qaadano arrintaas. laakiin intii dagaalkan uu bilowday wax xiriira ma la yeelateen oo ma la hadasheen Abu Mansuur? ma dhici kartaa de iyadoo la wada in dagaal la wada galo taas waxaa qiyaasi kartaa inuu jiro hadal maaragtay arrintaa ku saabsan. marka wuu nool yahay uu caafimaad qabaa Abu Mansuur saasaad leedahay? waana xaqiiqaya taas waan ku xaqiijinaynaa inuu maaragtay nool yahay oo micnaha isaga iyo ciidamadiisii iyo ciidanka micnaha dowladda ama ha noqdo koonfur galbeed ama federaal ha noqdo ayagana waxaa waaye waajibaadkooda wax alla wixii farxad ah ama wixii gurmad ah ka imaanaya nimankaani meelo badan ayay micnaha kaga sugan yihiin goboladan koonfurta Soomaaliya si gurmadyadaas aysan u dhicin ciidamadeena istiraatiijiyad badan oo meelo badan ay isticmaaleen ay jirto oo ah dagaalka ka qaybgalkiisa iska daayay inay marka ugu horeysaba gurmad kale uusan u imaan nimankaasi dadaalada ay micnaha ciidamada ay qorsheeyeen waayo arrimahaasna qolada saraakiisha ayaa aad ugu sii doondoleysha laakiin annaga ka siyaasad ahaan arrin aan u bareerayno waaye koonfur galbeed ahaan in dagaal al-shabaab oo lala dagaalamayo inaan ka qayb qaadano arrin aan cabeysino waayo. kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed Maxamed Xasan Fiqi waxaana uu u waramayay wariyaheena Haaruun Macruuf.